وعن daawadayaal hargal wanaagsan meel kasta oo naga daawanaysaan duhur wanaagsan halkan waa telefishinka RTN studio dhexe oo ku leeyahay magaalada Muqdisho ku soo dhawaada hargalkeena duhurnimo qodobada maanta hargalkeena aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah qadar ayaa u yeertay madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyaduna dhexaadinaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya Asmara iyo Addis Ababa oo isweydaarsanaya hadalla kulkulul xilli xuduudda waqooyi laga dareemayo kacsanaan military iyo dhaqdhaqaaq xoogan dawladda Soomaaliya waxa ay wadaa qorshe ay dib ugu qabsanayso deegaanka Aadan Yabaal taliyaha ciidanka lugta iyo saraakiil oo hogaaminayo oo soo gaaray Soomaaliya ayaa booqday furimaha hore ee Sabiid iyo Caano leh ee deegaanka Shabeellaha Hoose dhankaasi caalamkana daawadayaal waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxa kamid ah Iran ayaa aas u sameynaysa saraakiisha looga dilay duqeymihii ay Israa'iil ka geysatay dalkaasi hargal wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan hargal wanaagsan daawadayaal duhur wanaagsan meel kasta oo naga daawanaysaan alaaba saacadu markay tahay labada duhurnimo waxaan idin soo deynaa barnaamijkeena hargalka oo ku eegno waxyaabaha aadka loo hadalhayo waqti xaadirkan ee lagu hargalay dalka iyo dibadda taliyaha ciidanka lugta ee Uganda iyo saraakiil uu hogaaminayo oo soo gaaray Soomaaliya ayaa tagay furimaha hore ee dagaalka al-shabaab taliyaha ciidamada lugta Uganda General Kajanja iyo saraakiil uu hogaaminayo oo safar ku yimid Soomaaliya ayaa qiimeyn u tagay deegaanka Sabiid iyo Caano leh ee gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha ayaa la kulmay saraakiisha ciidanka Uganda oo hoos yimaada howlgalka AYUSOM isagoo kala hadlay dagaalka al-shabaab iyo guulaha ay ka gaareen la wareegitaanka deegaanka Sabiid iyo Caano leh ciidamada Uganda ayaa 7 askari uga geeriyoodeen dagaalka xoogan ee ka dhacay banaanka deegaanka Sabiid iyo Caano leh iyagoo ka barbar dagaalamayay militariga Soomaaliya taliya Kayanja ayaa ku amaanay ciidamada sida geesinimada leh oo qayb qaateen dagaalka al-shabaab isagoo xusay in la xoojiyo dadaalada lagu xasilinayo deegaanada laga saaray al-shabaab ciidamada Uganda ayaa muddo dheer ka garab dagaalamayay militariga Soomaaliya iyagoo qayb ka ahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab tan iyo sanadkii 2007 dawladda Qatar ayaa daawadayaal waxa ay u yeertay madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayadoona isku dayaysa inay dhexdhexaadiso maamulka Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa warkaasi inoo sii anbaqaadayo wariyaheena Nuux Qaradaawi xogo xasaasi oo soo baxay ayaa waxa ay daha ka qaadayaan in dawladda Qatar ay casuumad u fidisay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro kadib baaqi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jeediyay xafladda 26 Juun kaasi oo ku aadanaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland uu ka codsaday inay dib ugu soo laabato miiska wada hadalka madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa la filayaa inuu booqasho ku tago magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar kadib casuumad rasmi ah oo ka timid dawladda Qatar sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo xog ogaal ah booqashadan ayaa qayb ka ah dadaalada diblomaasiyadeed ee cusub ee Qatar ay wado si loo soo nooleeyo wada hadalladii hakadka ku jiray ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo muddo hakad galay wada hadalladaasi ayaa istaagay 1 January 2024 kadib markii madaxweynaha hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu heshiis muran dhaliyay la saxiixday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed kaasi oo Ethiopia siinayay marin badeed iyo saldhig ciidan inay ka helaan dhulka Soomaaliland labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay badil markaasina waxa xumaaday xiriirka hoggaanka aqalka aradkiilo ee Ethiopia Abiy Ahmed iyo midka filla Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud booqashada madaxweyne Ciro ee Qatar ayaa imaanayso iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay xuska 26 Juun isagoo oo ku baaqay in Soomaaliland ay dib ugu soo laabato miiska wada hadalka si looga xaajoodo midnimada dalka dawladda federaalka ee Soomaaliya wali kama aysan bixin wax faahfaahin ama jawaab rasmi ah oo ku saabsan casuumaadda Qatar u soo dirtay Ciro iyo inay iyaduna wafdi u dirayso Dooxa
maadaama labada dhinacba la dhexdhexaadinayo. asmara iyo addis ababa ayaa erayo kulul isweydaarsanaya iyadoona xuduudda waqooyi laga dareemaya kacsanaan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo military. warkaasi haynoo sii qaada dhigo wariyaheenna Hajar Cabdiqaadir. xiisad siyaasadeed iyo mid military ayaa mar kale cirka isku shareeraysa iyadoo Ethiopia iyo Eritrea oo hore u soo maray dagaal qarar ay mar kale isdaansanayaan xilli Addis Ababa si xoogan u muujinayso damaceeda ku aadan marinbadeeda. arrintan ayaa cabsi xoogan gelinaysa shacabka geeska Afrika iyadoo laga baqayo in mar kale colaad ka dhex qaraxdo labadan dal. xiisadan labada dal ayaa dhalisay hadallo kulul oo ay warbaahinta isku marinayaan waxaana soo taraya walaac laga qabo in geeska Afrika uu mar kale ka galo xaalad dagaal. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bartiisa X ku sheegay in dowladdiisu aysan damacsaneen dagaal ay la gasho Eritrea si ay u hesho marinbadeed, balse waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid la xiriirta jiritaanka qarnimada Ethiopia. ma lihiin wax niyad ah oo dagaal, waxaan doonaynaa in arrintani lagu xaliyo wada hadal iyo wada tashi. ha yeeshee marin welida badda cas waxay la muhraan u tahay mustaqbalka Ethiopia, ayuu yiri Abiy Ahmed. hadalkan ayaa yimid iyadoo warar madax bannaan ay sheegayaan in Ethiopia ay bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah xadka ay la wadaagto Eritrea, gaar ahaanna dhanka waqooyi, iyadoo si rasmi ah aysan u sharxin ujeedada ciidamadooda halkaasi lagu daabulayo. dowladda Eritrea ayaa dhankeeda si cad u diiday eedeymaha loo jeediyay, waxaana ay ku tilmaantay sheegashooyinka Ethiopia kuwa been abuur ah. wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Ismaan Saalax ayaa shir xog wareysi u qabtay safiirada ajaanibta iyo madaxda hay'adaha qaramada midoobay ee ku sugan Asmara, isaga oo sheegay in Eritrea aysan wadin wax diyaargarow ciidan. afhayeenka dowladda Eritrea Meskel ayaa bartiisa X ku qoray eedeymaha Ethiopia waa kuwa aan sal iyo raad toona lahayn. waxaa muuqata in Ethiopia ay isku dayayso inay iska inirtirto siyaasadeeda qaldan. xiisadan si xoogaysanaysa ayaa ka dhex dhalatay talaabooyin isdaba joog ah oo labada dhinac ay qaadeen. September 2014 sanadkii hore, Eritrea ayaa joojisay duulimaadyadii shirkadda Ethiopia Airlines waxayna xirtay xisaabaadkoodii bangiga. mas-uuliyiinta shirkadda diyaaradaha ayaa sheegay inaysan helin wax sabab ah oo rasmi ah. Febraayo 2020, hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Council Eritrea ayaa soo warisay in dowladda Eritrea ay bilowday wicitaan ciidan oo lagu bartilmaamisanayo dadka ka yar 60 sano, taasoo lagu tilmaamay askariinta qasabka ah. Maarso 2020, warbaahinta caalamka gaar ahaan Reuters ayaa sheegtay in Ethiopia ay ciidamo iyo taangiyo u dirtay xuduudda waqooyi iyadoo aysan jirin faahfaahin rasmi ah oo ka soo baxay dowladda dhexe. dagaalkii Tigray ee u dhaxeeyay dowladda dhexe Ethiopia iyo jabhadda TPLF waxa uu socday inta u dhaxaysay 2020 ilaa 2022, wuxuuna sababay khasaare bini'aadanimo oo baaxad leh. intii uu socday dagaalkan, Eritrea waxa ay si toos ah uga qayb qaadatay iyadoo ciidamadeedu ay ka dagaalamayeen TPLF. si kastaba ha ahaatee, markii la gaaray heshiiskii nabadeed ee Pretoria bishii November 2022, Eritrea laguma casuubin miiska wada hadalka, arrin ay falanqeeyaashu u arkeen inay dhaawacday kalsoonidii ka dhaxaysay Asmara iyo Addis Ababa. sababta ugu weyn ee la aaminsan yahay inay xiisadan horisay waa damaca Ethiopia ee ah inay hesho dekad ay si toos ah u isticmaasho. tan iyo markii ay Eritrea xornimada qaadatay 1993, Ethiopia waxay ku tiirsan tahay dekadda Djibouti, taasoo sanadkii ku kacaysa lacag gaaraysa 1 bilyan. hadalka Abiy ah in Ethiopia ay xaq u leedahay marinbadeed ayaa Asmara u fasiratay inuu yahay damac dhuleed, iyadoo la tuhunsan yahay in dekadda Asab uu yahay bartilmaameedka dhabta ah Ethiopia. ururada caalamiga sida qaramada midoobay iyo midowga Afrika iyo dowladaha saaxiibka la labada dhinac ayaa loo jeediyay baaq degdeg ah oo ah inay fargelin ku sameeyaan xiisadan ka hor inta aysan isku bedelin colaad hubeysan. waxaan u baaqaynaa beesha caalamka inay cadaadis ku saarto labada dal si loo joojiyo abaabulka ciidan loona dhowro xuquuqda muwaadiniinta, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay'adda HRCE. xiisadan cusub ee ka dhaxloolsan Ethiopia iyo Eritrea waxay halis gelin kartaa nabadda curdunka ee geeska Afrika, inkastoo labada hoggaan ay ku adkeysanayaan inaysan doonin dagaal,
haddana ficiladooda siyaasadeed iyo militari ayaa muujinaysa khilaaf qoto dheer oo u baahan in si degdeg ah loogu xaliyo masraxa diblomaasiyadeed. dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshahay dib ula wareegi lahayd deegaanka Aadan Yabaal oo indhawaalaba ay ka talinayeen kooxaha Al-Shabaab. warkaasi waxaa inoo eegaya wariyaheena Cabdiqaadir Abuukar Cali. dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshihii ugu dambeeyay oo ay dib kula wareegi lahayd degmada qadiimiga ee Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo la arkayo in qayb ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay hadda dejinayaan qorshayaal ay dib ugu noqonayaan degmadii Aadan Yabaal oo Al-Shabaab ay ka qabsatay. ciidanka dowladda ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgalo ka sameeyeen deegaanada hoos yimaada magaalada Masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgaladan oo ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa ciidanka ku weelinaya saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga sida taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Sahal Cabdullaahi Cumar. ujeedada howlgaladan ayaa ah sidii loo sifeyn lahaa deegaanada hoos yimaada Masaajid Cali Gaduud kadibna si toos ah loogu guuri lahaa ama loogu jihaysan lahaa degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dowladda Soomaaliya mid ka mid ah weeraradii sida weyn loogu dhaliilay ayay qayb ka ahayd in Al-Shabaab ay dib u qabsato degmada Aadan Yabaal ee gobolkaasi, waxaana ilaa hadda jira su'aalo la iska weydiinayo sidii dowladdu ay uga soo baxday degmadaasi. taliyaha ciidanka dhulka Generaal Sahal ayaa cadeeyay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Shabeellaha Dhexe, waxa uuna ku adkeeyay carabkiisa in shacabku ay garab siiyaan ciidanka xoogga isla markaana ay iska garab istaagaan sidii dib loogu noqon lahaa degmada Aadan Yabaal. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawaa Yuusuf Raagi ayaa dhankiisa ku sugan magaalada Muqdisho, waxa uuna wadaa abaabulkii ugu dambeeyay oo ka dhan ah Al-Shabaab, ciidanka xooggana uu ku boorinayo in dib loogu qabsado degmada Aadan Yabaal. waxaa ilaa hadda la xaqiijiyay in duqeymo hor leh ay ka geysatay halkaasi oo lagu beegsaday sida la sheegay rag fara badan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, gaar ahaan 12 xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen hogaamiyaasha ugu sarsareeya ee ururkaasi, gaar ahaan kuwa ka howlgala Shabeellaha Dhexe. waxaa maanta magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya lagu daahfuray kulan ay ku kala saxiixdeen heshiis istiraatiiji ah shirkadda Dahabshiil Group iyo hay'adda caalamiga ah ee Save Children, kaasi oo xoogga saaraya daryeelka iyo badbaadinta carruurta nugul ee ku nool geeska Afrika. munaasabadan oo si rasmi ah u furay wasiirka caafimaadka ee Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa lagu shaaciyay iskaashigan oo xoojinaya xiriirka ka dhaxeeya Save the Children iyo Dahabshiil oo soo jiray muddo dheer. heshiiskan ayaa qayb ka ah hirgelinta yoolka 17aad ee horumarka waara SDG 17 oo ah iskaashi dhab ah oo u dhaxeeya dowladaha, ganacsatada iyo hay'adaha samafalka. waxaa goobta joogay mas'uuliyiin heer caalami ah oo ay ka mid yihiin CEO-ga Save the Children UK, deeq bixiyaalka kala socda dalalka Midowga Yurub iyo wadamo kale oo caalami ah. xiriirkan ayaa loo arkaa mid kale oo muujinaya kalsoonida beesha caalamka ay ku qabto doorka Dahabshiil Group. wasiir Aadan Barre Ducaale ayaa u mahadceliyay shirkadda Dahabshiil, isagoona tilmaamay in doorkeeda muuqda ee arrimaha bulshadu ay tusaale u yihiin ganacsiyada fahamsan mas'uuliyadda bulshadeed ee saaran. waxaan aad ugu faraxsanahay in aan idinla joogo subaxnimadan daafurka iskaashi aad muhiim u ah oo dhex maraya Save the Children iyo bahda Dahabshiil. iskaashigan oo isku keenaya dadaal bini'aadanimo iyo hal abuurka ganacsiga gaarka loo leeyahay si loogu adeego carruurta gobolka. munaasabadan maanta kaliya ma ahan mid rasmi ah, balse waa xaqiijin kale oo ah awood uu leeyahay iskaashigu marka la wajahayo caqabadaha caafimaadka iyo horumarineed ee xilligan. iskaashigan istiraatiijiga ee u dhaxeeya Save the Children iyo Dahabshiil waa fikrad horusocod ah oo aqoonsanaysa in caafimaadka carruurtu uusan kaliya ahayn arrin damiir ina farayo, balse uu yahay aasaaska horumar waara. wasaaradda caafimaadka ee Kenya iyadoo la jaan qaadaysa qorshaha madaxweyne Mudane William Ruto iyo kobcinta dhaqaalaha hoos laga bilaabayo, waxaa si buuxda uga go'an in la gaarsiiyo adeeg caafimaad oo cadaalad tayo leh dhammaan shacabka Kenya, gaar ahaan kuwa nugul. hadafkeenu waa daryeel caafimaad ee qof walba. wuxuu ku dhisan yahay mabda ahaan in aanay jirin ilmo laga tagayo, taasina waxay ka bilaabataa annagoo carruurta horumarinayna. runtii waa idin mahadcelinaynaa Dahabshiil ahaan. xaqiiqatan waa arrin muujinaysa sida aad faa'iidada ganacsigiina dib ugu celinaysaan bulshada. waxaanan hubnaa inaad la shaqaynaysaan koox sax ah. Save Children
waan garanaynaa shaqada ay hay'addan ka qabato Kenya gaar ahaan waqooyi bari sida Wajeer, Gaarisa iyo xeryaha qaxootiga sidaas darteed waxaad tihiin qayb ka mid ah koox howlo badan oo muhiim ah qabanaya aad baad u mahadsantihiin maamulaha guud ee Dahabshiil Group mudane Cabdirashiid Ducaale ayaa isna cadeeyay in shirkadu ay si buuxda uga go'an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta bulshada isagoona sheegay inay ka go'an tahay shirkad ahaan inay door muhiim ah ka geystaan dhinacyada baahiyaha ka taagan yihiin hadday tahay caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah bismillahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum aad baan ugu faraxsanahay inaan Save the Children iyo Mr Malik oo halkan CEO-ga Save the Children joogaba inaanu partnership aanu la seexanay taasoo muujinaysa sida ganacsatadu ay horumarka dadkooda uga qayb qaadanayaan Save the Children iyo hay'adaha la midka ahiba Dahabshiil waxay u yihiin customer lacagtay ka dirtaan iminka dadka qurbaha jooga ayna daawanayaan diaspora-ga ayna lacagay dibadda ka soo diraan waa lacago horumarka waddanka ka qayb qaata caruurta iyo dadka jilicsanna caawiya lacagaha remittanceska dibadda ka imanayana important iyo waxay u tahay dhaqaalaha Soomaalida meel ay joogaan iyo gobolkanba meel muhiim ah ka tahay haddaan ognahay Dahabshiil waxaan doonaynaa Save the Children iyo partnership-ka kala caalamkuba in lacagaha dibadda ka imanaysa ay fududeyso dadka jilicsan la caawiyo private sector-kuna ay sameeyaan horumar xagga shaqada ah Dahabshiil haddaan nahayna waxyaalo badan oo sabafala ayaan ilaalintii Dahabshiil la aasaasay oo gudoomiyaha shirkadda Xaaji Maxamed Saciid uu mar walba ka qayb qaadanayay shirkadahaana haddii maanta abaar dhacaan Dahabshiil qayb ka qaata haddii dab meel ka dhaco Dahabshiil qayb ka qaata haddii daadad ay dhacaan Dahabshiil qayb ka qaata cisbitaalada tacliinta wax allaala wixii ummadda horumar u keenaya Dahabshiil qayb ka qaata weligeed uu ka qayb qaadan jiray iminkana uu sii xoojinaya haddii alla ka dhigo ummadda ina daawanaysa waxaan doonaynaa in iyaguna qaybtooda horumar ay ka qayb qaataan aad baa u mahadsantihiin madaxa Save the Children ee UK Mozam Malik ayaa isna tilmaamay muhiimadda ay leedahay la xoojiyo iskaashiga noocan oo kale ah isagoona carabka ku adkeeyay inay tahay tani fursad weyn oo lagu ballaarin karo barnaamijyada naf badbaadinta carruurta gobolka So we are here today in Nairobi waxaa maanta halkan Nairobi uga dabaaldegaynaa daafurka iskaashiga u dhaxeeya Dahabshiil Group iyo Save the Children iskaashigan wuxuu bilaabmay markii wada hadallo aan yeelanay sanadkii 2023 waxaan horay uga wada shaqeynay arrimo ay kamid yihiin lacagaha xawaaladaha balse waxaa wali jira wax badan oo aanu wada qaban karno Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka waxaa ka jira nuglaansho baaxad leh oo haysata carruurta iyo qoysaskooda iskaashi dhex mara ganacsi gaar ah iyo hay'adaha samafalka sida Save the Children wuxuu keeni karaa isbedel dhab ah waxaanu garanaynaa sida nolosha loo badbaadiyo waxaanu garanaynaa sida tayada nolosha loo hagaajiyo waxaanu ognahay sida carruurta loogu abuuro bilaabasho wanaagsan oo noloshooda ah balse si kelinimo ah uma qaban karno waxaan u baahannahay curinta kartida dadaalka maalgelinta iyo hal abuurnimada ganacsiyada gaarka loo leeyahay Dahabshiil oo ah mid ka mid ah shirkadaha hormuudka u ah xagga adeegyada maaliyadeed ee Afrika ayaana miiska inala joogta taasi waxay noo sahlaysaa inaan wax badan qaban karno wixii aan keligeen qaban lahayn sidaas darteed waxaa si gaar ah ugu mahadcelinaya saaxiibkay maamulaha guud ee Dahabshiil Group mudane Cabdirashiid Ducaale waxaan si dhab ah u rajaynayaa inaan wada gaarno wax badan sanadaha soo socda Soomaaliya Somaliland iyo guud ahaan gobolka going to achieve in the coming years in Somalia, in Somaliland and across the region. munaasabadan waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya wakiilo ka socday hay'adaha horumarinta iyo madaxda xarumaha caafimaadka ee dalka Kenya xildhibaan Cadow oo baarlamaanka Kenya ka tirsan ayaa isna muujiyay sida uu arko doorka Dahabshiil ee arrimahani iskaashigan maanta halkan lagu daafuray ee u dhaxeeyo hay'adda Save the Children iyo Dahabshiil waa mid aad iyo aad mudnaantiisa u leh waxaana ay muujinaysaa sida aan dadaal maanta ugu jirno ama hay'adaha sida Dahabshiil oo kale ay hormuud ugu noqonayaan dadaalada lagu buuxinayo daloolada ka yimid hoos u dhaca qarashaadka ama deeqaha ka imanaya reer galbeedka oo iyagu maalmahan dambe lacagihii ama hay'ado la baabiyay ha noqoto ama siyaasadaha ha noqoto ama dhibaatooyin badan oo adduunka ka aloosan ha noqdaane lacagihii laga heli jiray ay aad u hooseeyaan marka Dahabshiil waxay hormuud u tahay inaan annaga haddaan nahay ummadda geeska Afrika haddaan nahay mataqaanaa mas'uuliyiinta iyo ganacsatada inaan buuxino wax walba oo dalool oo yimaado si deeqaha loo fidinaya ummadaha tabaalaysan ee dhibaatooyinka ay hareeyeen
ay helaan deeqihii ay u baahnaayeen hay-adihiina ayna noqonin kuwo un ku tiirsan reer galbeed iyo deeqbixiyaal caalamiya. iskaashigan cusub ayaa loo arkaa tusaale la taaban karo oo muujinaya sida uu shirkadaha dahabshiil oo kale ay door muhiim ah uga ciyaaraan arrimahan samafalka bini'aadantinimada shaqo abuurka iyo lacagaha qurbaha ka imaanaya kuwaasoo kasii qayb qaadanaya mar kale doorarka nololeed ee bulshada iyadoo shirkadu taageeradii looga baahnaa ay ka helayso dowladaha iyo hay-adaha caalamiga xilli gobolka uu wajahayo carqabado ka dhashay gargaarkii iyo deeqihii bini'aadantinimo ee hay-adaha samafalka ay ka heli jireen deeqbixiyaasha caalamiga. waa tahay daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan hargalkeena duhurnimo oo alaaba 8 duhurnimo ama 2 duhurnimo saa u taqaanaan aad naga daawataan telefishinka RTN ana ku soo qaadano waxyaabaha aadka loo hadalhayo dalka iyo dibaddaba dhankaasi caalamkana haddaan eegno daawadayaal Iran ayaa maanta waxay u sameynaysaa aas saraakiishii looga dilay duqeymihii Israa'iil ee ka geysatay dalka Iran. aas qaran ayaa ka socda Iran oo loo sameeyay ku dhawaad 60 qof oo ay ku jiraan taliyaal ciidan iyo saynisyahano nukliyeer ah kuwaas oo lagu dilay dagaalkii 12 maalmood socday ee kula jirtay Israa'iil. naxashiyo lagu xardhay calanka Iran iyo sawirada taliyaasha dhintay ayaa waxaa hareer taagnaa dadweyne aad u badan oo ku dhow fagaaraha Engelib ee bartamaha Tehran. colaadda ayaa ku dhamaatay xabad joojinta horaantii toddobaadkan kadib markii Mareykanka uu si toos ah ugu lug lahaa duqeymaha xarumaha muhiimka ah ee nukliyeerka Iran. dadka saaka loo sameeyay aaska waxaa kamid ahaa Maxamed Bagheri oo ahaa sarkaalkii ugu darajada sareeyay militariga Iran isla markaana ahaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Iran. dadweyne aad u tiro badan oo ku labisan dhar madow ayaa ku qaylinaya halku dhig waxaana ay ruuxayeen calanka Iran waxaana ay haysteen sawirada dadkii la dilay. aaska maanta oo sabti ah waxaa sidoo kale loo sameeyay qaar kamid ah taliyaasha oo kamid yahay Hussein Salami taliyaha guud ee ilaalada kacaanka islaamiga ah iyo sidoo kale tiro kamid ah saynisyahanada nukliyeerka sida Maxamed Mahdi oo ahaa madaxa jaamacadda Azad ee Tehran. aaskan ayaa ku soo aadaya kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu gabi ahaanba ka fiirsan doono inuu mar kale duqeymo ka geysto dalkaasi Iran. waa tahay daawadayaal guud ahaan waxaan halkaa ku soo gabagabeynaynaa hargalkeena duhurnimo oo alaaba ah aad ka daawataan shaashada TV-ga caalamiga ee RTN. haddaan dib idin xasuusiyo qodobada maanta hargalkeena duhurnimo aad ku daawateen waxaa kamid ahaa dowladda Qatar oo u yeertay madaxweynaha maamulka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyadoona dhexdhexaadinaysa maamulka Somaliland iyo Soomaaliya. Asmara iyo Addis Ababa ayaa erayo kulul isweydaarsanaya xilli dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo xuduudda waqooyi iyo sansaan colaadeed. dowladda Soomaaliyana waxa ay wadaa qorshihii ay dib ugu qabsan lahayd deegaanka Aadan Yabaal. taliyaha ciidamada lugta ee Uganda iyo saraakiil oo hogaaminaya ayaa waxa ay tageen jiida hore ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dhankaasi caalamkana qodobada daawateen waxaa kamid ahaa maanta oo sabti ah Tehran waxaa ka socda qabanqaabada aas qaran oo loo sameynayo 60 qof oo ay ku jiraan taliyaal dowladda Iran saameyn ku lahaa iyo saynisyahano nukliyeer ah. waa tahay daawadayaal hargalkeena waxaa idin la socodsiinayay maanta oo sabti ah anigoo ah Xamdaan Sheekh Axmed tan iyo kulantay dambana waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah.